halkan waxaynu ka geli doonaa goob ka duwan magaalooyinka Soomaaliya waa magaalada Baydhabo khaasatan waxaynu geli doonaa meel la yiraahdo Garbada oo ah meel dalxiisayaasha dadka yimaada magaalada Baydhabo ay tagaan wax badan ayaa halkaas ku qarsoon oo aynu ogaan doonaa ay kaga duwan tahay guud ahaan dhulka Soomaaliyeed halka aynu hadda u socono isoo raaca dalkaygo dushaadu waa barwaaqe dalkaygo waa goob qurux badan indhihii daawada marna aysan ka indhalibiqsanayn hawada deganay macaan biyaha durdurayay aan kala joogsiga lahayn waa goobta kaliya ee dunidan aynu ku noolnahay laga helayo geyiga Soomaaliya magaca loogu caleemo saaray waa Garbada Baydhabo Jinaay oo sanado fog ay halkani soo jirtay waxaa ku hareeraysan beero dalagyo kala duwan oo ay ka baxayaan Garbada oo ah meesha uu Alla ku manaystay biyo aan kala joogsi lahayn waxaa ka soo go'a dhirta dhaadheer ee laga sameeyo dirinta cawda ah xaaqinka ama mafiiqda babiska la isku babiyo waa farshaxanadii bulshada Soomaaliyeed ee caanka ku ahayd dhagxaan sida jabalada badda u samaysan ayaa ka muuqanaya halkan qofkii arkaana waxa ay xusuustiisa dib ugu celinaysaa inuu joogo badda ama hareeraheeda dhalinyaro raxan u socda ayaa gaara halkani si ay qaarkood ay ugu galaan masawirro xusuus u leh taariikhdooda qaar way dabaalanayaan oo mararka qaarkood meelo kore ayay iska soo tuurayaan iyagoo muujinaya kalsooni ah in halkan si xirfadaysan ay ugu dabaalan karaan goobtan indha soo jiidashada leh waa goobtii Allah u naxariistay Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi uu ka tiriyay tixsuugaaneedkii ahayd waa dhul wada barwaaqiyo oo lahayn badiya wabi dalkaygo dushaadu waa barwaaqe dalkaygo dabeeshaadu waa gudgoontehe dalkaygo liibaan Sheekh Shucayb waa agaasimihii hore ee wasaaradda dib u dejinta dowladda Koonfur Galbeed haddana waa siyaasi ku nool gudaha magaalada Baydhabo waxa uu telefishinka dalsan u sharaxay taariikhda fog oo ay leedahay halkan oo ah Garbada iyadoo lagu xasuusto in abaaro xoogani oo kal hore ku dhuftay sanado ka hor magaalada Baydhabo in dadka halkan ay ka biyo cabayeen qayb ka mid ah halkani waa ilbiyood aan weligeed ka go'in biyaha ka soo burqanaya waxaan soo joognay muxuu ahaa ayadoo dhabarkayga dambe xididkaana laga fuulaayo buurtaas la fuulaayo xidid un la qabsanayo ciddii soo dhacdana ay halis tahay waxaa ka sii dambeeyey laba mukuy la dhihi jiray ayadana waa meel weyn oo tog ah oo ayadana biyaha ay soo maraan oo lagu qabaysto dhanka bari waxaa naga xiga magaaladii dhankaana waxaa naga xiga xaafadda Buulo Jameeca la oran jiray ama madaxtooyadii hore markaan taariikhaha hore ay lahayd meeshaan waxay ahayd meel baanraamo ah oo loo soo sawir tago oo loo soo raaxa tago oo madaxtooyada dadka madaxtooyada degan ay ilaaliyaan madaxtooyadan laga ilaaliyo oo xarun ahoo ay dadka ilmaha yaryar oo magaaladan aan laga celin loo soo dabaal tago oo cid allaale ciddii Baydhabo ku sii joogtay ama Baydhabo ku soo dhalatay mise ku soo kortay ama soo gaartay ay xasuus ku dhalin karta markay arkaan muuqaalkan ay horay u haan jirtay kadib waxaa dhacay markaan taariikhdeedii sii wado intaan ka ogahay aniga taariikh ogaalkayga burburkii dawladda markaasi dawladda burburtay horta magaalada Baydhabo biyo waa laga waayay ishana biyihii waa goosatay laba meel kaliya biyaha laga cabi jiray ceel shiina la yiraahdo ku yaala muxuu ahaa xaafadaas Karofoga iyo booshan oo meeshan biyaha ilmaha ay dabaashaan halkani waa biyaha ama isha biyaha ay ka soo dureeraan oo aan kala joogsi lahayn waa biyo macaan ceelka biyaha laga cabo macaanidooda oo macaani lagu sii daray ay biyahani soo rogmanaya ay leeyihiin waa waxyaabaha gaarka ay ku tahay magaalada tan Baydhabo Janaay
waa meel aad u qurux badan joogitaanka iyo ku dalxiisaduba astaan gaara ayay u leedahay meel sidan jawigeedu u macaan yahay allow dalkeenna iyo dadkeenna oo nabad ah bulshadoo iscaawisa isna garab qabataa allow aday xaggaaga ahaatee rabbow dalkoo nabad ah xasan salaad xasanlaki raadiyaha telefishinka dalsan magaalada baydhabo janaay xarunta gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed